السلام عليكم ورحمة الله. جايز waxaan ka soo baxay masaajidka Camar. Afwan, imaan hal ma lahan. Waxaan ka soo baxay masaajidka Aamina aan ka soo baxay. مغادة الخبر الكبير من مغادة صومالية أد هو عمت كل جنب لنا أنا جوتان كي رباط أبا أسكت أشتغل هي أنا كل سنة معاني قرار فيهين بس المعادن يحمادن على شيء ذا يأفكي اسمه ديرة يعني عند عنتي السوق هذا إني وضعنا واو أنا متى بيك فان ما بيجي بس كذا هرب وجع له يعني مقعدة قطعنا واو فرمان بس كير هذا مدحان dadka matalaya doorashooyinka waxay ku galaan jamka in ka yareynayna wadooyinka idin waasicinayna idin balaarinayna maartay waxbarashada aan yani ama free kariyana ama aan wax ka garayna cashuur dhimisaan samaynayna ama yani baas feerka ama ma kana baabuurta la raacay dadweynaha free wadhigeena qayb bulshada kamid ah hadda maalin dhaweyd inta qaldana xisbiga hadda guuleystay kongaraaska ah wuxuu doorashada ku soo galay waxaan siinaynaa yani waxbarasho oo yani gabdhaha hindida ah baabuurta raacay free ku raacay lacag laga marabo dhaqan noocaas camal ah ay ku soo galeen doorashada ana guuleysteen dabcan waxaan jeclahay in hadda dhaqan galiyeen hadda baabuurta weyn bas iska aragtaan waxaa free ku raacaan gabadha hindida ah lacag lagama qaado gabadha hindida ah lacag lagama qaado marka anaga ma haysanaa xisbiyo doorashada ku galaayo una ka tartamaayo adeega dadweynaha inay qoxiyaan wax ka bedel ku sameeyaan ma haysanaa su'aasheedu waa taas xisbi walba kan xisbul xaakimka xukunka haya iyo kan doorashada soo galaayaba waxay ku tartamayaan waxa waaye yani wax oo aan soo dhaafsiisnayn yani xerada maamulka dalka bis adeeg la soo daadijiyo oo bulshada soo gaara oo la fudaydiyo inay ku soo galaan tartanka maba dhacdaba muwaadinkana qofka muwaadinka ah baahida ugu weyn ee muwaadinka dawladdiisa kaga baahan maxaa waaye baahida ugu horeysa muwaadin walba laga rabo maxay tahay excellent